الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وناكسن خيارتنا داوانيسا مeel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo kamid ah barnaamijyada TV-ga aan kugu talagalay in waqtigeena uu idinku la qaato. barnaamijkan ayaa mid documentary ah oo aan idinku soo koobi doono guud ahaan qaabkii ay u dhacday dawladii Saddam Hussein iyo guud ahaan ciidamadii isbahaysiga ahaa ee sanadii 2003 duulaanka ku galay dalkaas Ciraaq. barnaamijka ayaan kusoo koobi doonaa guud ahaan waxyaabaha kala duwan ee dagaaladaasi laga dhaxlay qaabkii u dhacday duulaankaasi sababihii keenay. barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga tabinaya anigoo Cabduqaadir Qayska, waxaa kala qayb galaya wariye Cabdifataax Cali Shirwac oo ku sugan magaalada London. barnaamijkan waxaan idin leeyahay meel walba aad joogtaan la socod wanaagsan iyo waqti wacan. dagaalkii Ciraaq, dagaalkii saddexaad ee gacanka amaba dagaalkii Ciraaq ama qabsashadii Ciraaq waa magacyadii ugu badnaa ee noqday kuwii loogu magac daray duulaankii ciidamada isbahaysigu ay ku galeen gudaha dalkaasi Ciraaq sanadii 2003 taasoo keentay in ciidamadii Mareykanku hoggaanka u hayay inay qabsadaan dalkaasi Ciraaq. waxaana waqtigaasi Mareykanku taageero weyn uu ka helayay wadamada Ingiriiska iyo waliba Australia iyo kuwa kale oo ay isbahaysi ahaayeen. intaanu Mareykanka iyo xulufadiisu aysan qabsan ama galin gudaha dalkaasi Ciraaq, waxay caalamku ka dhaadhiciyeen isla mar ahaantaada ka gadeen aragtida ay qabeen oo ahayd in lagu duulo dalkaasi Ciraaq. waxaana waqtigaasi ay ku doodayeen in Ciraaq ay haysato hubka waxgumaada ee nukliyeerka si dagaalkaasi ay u sharciyeeyaan. ka hor inta xukunka uusan la wareegin George W. Bush, waxaa jiray xusuus qor ay siyaasiyiin caan ah weerar Mareykan ay qoreen taasoo sheegaysay in dib loo dhiso awoodaha gaashaandhigga dalkaasi Mareykanka, taasoo la qoray sanadii 2000 oo la macno ah sanad ka hor dhacdooyinkii Sebtembar 2001 kuwaasoo dhulka lagu dhigay daarihii mataanaha ahaa ee ganacsiga ee Twin Towerska. qoraalkaasi ayaa la sheegayaa inuu ahaa mid looga hadlayay xal u helidda khilaafka Mareykanka iyo waliba Ciraaq u dhaxeeya, gaar ahaan madaxweynihii talada dalkaasi hayay Saddam Hussein Cabdilmajiid. waxaana xusid mudan in madaxweyne Saddam uu isagu waqtigaasi si weyn uga soo horjeeday ganaanshaha Mareykanka ee mandiqada gacanka, waxaana taasi ay keentay in Mareykanku uu go'aansado inuu talada ka tuuro Saddam Hussein. kadib dhacdooyinkii 11 Sebtembar iyo guulihii horudhaca ahaa ee Mareykanka uu ka gaaray dagaalkii Afghanistan uu ku galay, ayaa Mareykanka waxa u soo baxay inuu waqtigaasi haysto fursad kale oo isagu ku andacoon karo isla markaana ugu sharciyeyn karo laaba kasta uu qaadayo. waqtigaasi waxa uu arkayay inuu haysto taageero military iyo mid diblomaasiyadeed.
taasoo Maraykanku u arkay inay ku filan tahay si uu meesha uga saaro wax kasta oo khatar ku ah amniga Maraykanka iyo kan caalamka sida waqtigaas uu aaminsanaa. waxa dabayaaqadii sanadii 2001 Maraykanku uu si cad u muujiyay inay ka go'an tahay inuu meesha ka saaro xukunkii Saddam. waxa waqtigaasi galaangal xoogan u galay sidii u kasban lahaa aragtida cadadyowga caalamka gaar ahaan tan reer Maraykan. waxaana waqtigaasi jiray in dad badan oo reer Maraykan uu kasbaday inkastoo ay jireen ra'yiga shucuub badan oo Maraykan oo ka soo horjeeday dagaalkaasi. intii uusan dagaalkaasi dhicin kabiirka baarista hubka waxgumaada ee dalkaasi Ciraaq Hans Blix ayaa isagu tilmaamay in hubka waxgumaada aan laga helin gudaha dalka Ciraaq laakiin laga helay sawaariikhda aadka u dheereysa. bilowgii ololaha dagaalka Maraykanka iyo boqortooyada Ingiriiska waxay bilaabeen inay dadaal xoogan u galaan sidii ay u sharciyeen lahaayeen ololahoodu ay duulaan ay ku qaadaan gudaha dalkaasi Ciraaq iyagoo u sii maraya qaramada midoobe balse isku daygaasi ayaa noqday mid fashilmay. madaxweynihii waqtigaasi dalkaasi Maraykanka George W. Bush ayaa isagu wuxuu cod ka helay golaha Koongareeska kadib khilaaf xoogan oo uga yimid xisbiga dimuqraadiga u arkayay in waqtigaasi Maraykanku uusan dagaal ku galin ama ku qaadin dalkaasi Ciraaq. waxa waqtigaasi qaramada midoobay soo saartay qaraar sheegaya in dib loogu laabto gudaha dalkaasi Ciraaq isla markaana guddiga baarista ugu laabtaan dalkaasi si ay u eegaan haysashada hubka waxgumaada ee nukliyeerka. waxaana waqtigaasi dawladda Ciraaq la faray inay la shaqeyso isla markaana u fududeyso guddigaasi haddii taasi ay ka dhaga adeegtana tallaabo laga qaadi doono isla markaa iyadu ay ka mas'uul tahay natiijada ka dhalata. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing. For their own safety, all foreign nationals, including journalists and inspectors, Saddam Hussein iyo wiilashiisa waa inay dalka gudihiisa uga baxaan 48 saacadood. haddii taasi ay samayn waayaan waxay keeni doontaa in tallaabo military aan ku xalino. marka si loo ilaaliyo nabadgelyada wariyaasha iyo baarayaasha ku jira dalka Ciraaq waa inay dalka si degdeg uga baxaan. including journalists and inspectors, should leave Iraq immediately. labaatankii bishii Maarch sanadii 2003 saacadu markay ahayd 2:30 saqdii dhexe ee waqtiga GMT-ga oo u dhiganta kadib 90 daqiiqo waqtigii uu madaxweyne Bush u qabtay in madaxweyne Saddam Hussein iyo wiilashiisu isaga baxaan dalkaasi Ciraaq waxaa qaraxyo xoogan laga maqlay magaalada caasimadda ah ee Baghdad. shan iyo 40 daqiiqo kadib madaxweynihii xilligaasi dalka Maraykanka
George W. Bush ayaa isagu sheegay inuu amray garaacista dalka Ciraaq. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. ciidamada milatariga Maraykanka iyo kuwa isbahaysiga waxay bilaabeen howlgalkii hubka dhigista Ciraaq, xoreyntii shacabka iyo ka hortagista khatarta caalamka uga soo socota dalka Ciraaq. sida amaradaydu ay yihiin ciidamada isbahaysiga hadda waxa ay bilaabeen duqeynta goobaha milatariga iyo kuwa muhiimka u ah Ciraaq si loo naafeeyo awoodda Saddam Hussein. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. durbaba waxaa soo baxayay warar sheegaya in duqeyntaasi lala eegtay mid ka mid ah qasriyada madaxweyne Saddam Hussein ee ku yaala magaalada Baghdad, taasoo la aaminsanaa in waqtigaasi uu ku guda jiray amaba gudihiisa uu ku sugnaa madaxweyne Saddam. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير صدق الله العظيم. madaxweynihii dalkaasi Ciraaq Saddam Hussein oo TV-ga dalkaasi khudbad ka jeedinayay ayaa waxa uu la dardaarmay shacabka reer Ciraaq isla markaana ku dhiirigeliyay ciidamadii dalkaasi Ciraaq. أيها الشعب العظيم، أيها النشام المجاهدون، رجال قواتنا المسلحة الباسلة، يا أبناء أمتنا المجيدة، مع صلاة الفجر لهذا اليوم. شعب وينها شرفت له مجاهدين تدلكان سو مجيستياشا ciidamada xooga dalka Ciraaq iyo wiilasha umada sharafta lahow salaadii subax ee saakay 20ka bisha 3 2003 buushkii yaraa isaga iyo kuwii la midka ah waxay galeen dambiyadii ay la maaganayeen dalka Ciraaq. 20/3/2003 ميلادية الموافق 17 محرما الحرام 1424 هجرية ارتكب المجرم الأرحن جوش الصغير هو وأعوانه جريمته التي كان يتوحد بها العراق والإنسانية. haddaba dagaalkaasi waxa uu ahaa mid mar qura ka bilowday dhulka iyo hawada, waxaana ciidamadii Maraykanku waqtigaasi ay rumaysnaayeen in marka ay jabiyeen ciidamada Ciraaq ay taageero xooggan ka helayaan shacab weynaha Ciraaq, sidaasina ay ku gaari karaan hadafkooda isla markaana khasaaruhu aad u yaraan doono. dabcan dagaalkaasi waxa uu ahaa mid xawli ku socday, waxaana waqtigaasi la sheegaa in ciidamadii isbahaysigu uu aad ugu fudaaday dagaalkaasi iyadoo ay jireen xisbiyo isbahaysi ay la ahaayeen oo gudaha dalkaasi Ciraaq, kuwaas oo ka mid ahaa xisbigii Kurdiga ahaa ee waqtigaasi u hogaaminayay Jalaal Talibani iyo waliba Mas'uud Barzani, halka ay jireen hogaamiye diimeedyo Shiicada ka tirsanaa oo dawladdaasi si weyn uga soo horjeeday.
iyadoo dagaalkaasi si xowli uu ku sii socdo muddo ku aadan 3 isbuuc waxaa dhacay dowladii dalkaasi Ciraaq iyadoo laga cabsi qabo inay dhacdo si la mid ah tii dhacday dagaalkii gacanka ama Khaliij oo lagu gubay goobihii naftada waxaa ciidamadii Ingiriisku ay isku fidiyeen goobaha naftada ee hodanka ku ah gaar ahaan Rumeela, Qasad iyo Faw waxaana waqtigaasi ciidamadii Ingiriiska si weyn u caawinayay ciidamadii Australia ciidamadii Mareykanka ayaa iyaguna waxay ka soo gudbeen magaalooyin badan oo ka mid ah dalkaasi Ciraaq 27kii bishii Maarso sanadii 2003 toddobaad kadib bilowgii dagaalkii Ciraaq ciidamadii Mareykanka ayaa wax horumar ballaaran ka sameeyeen dagaalkii ay kula jireen ciidamada dalkaasi Ciraaq intaasi kadib ciidamadii isbahaysiga hormuudka u ahaa Mareykanka ayaa iska caabin xoogan kala kulmay ciidamadii Ciraaqiyiinta kuwaasi oo dagaalo xoogan kula galay deegaanada Kifil, Najaf, Kuufa iyo meelo kale oo ka mid ah dalkaasi Ciraaq ciidamadii Ingiriiska ayaa iyaguna waxa la sheegaa in qasaare badan ay kala kulmeen dagaalkii Ciraaq waxaana dagaaladaasi lagu tilmaamaa inuu ahaa kuwii ugu kululaa ee ciidamada Ingiriisku ay galaan tan iyo dagaalkii labaad adduunyada sida Baaris la sameeyay lagu ogaaday 27kii bishii Maarso sanadii 2003 ciidamadii Ingiriiska ayaa waxay qabsadeen isla markaana gacanta u gashay magaalada Basra kadib markii ay gubeen 14 taangi oo ay lahaayeen ciidamadii Ciraaqiyiinta halka 9kii Abriil isla sanadaasi 2003 ay kala dhantaalmeen ciidamadii Ciraaqiyiinta kuwaas oo magaalooyin badan ku jabay warfaafinta waqtigaasi ee dalka Ciraaq Maxamed Saciid Asxaab oo isagu waqtigii dagaalka ku sugnaa hoteelka Sheraton ee magaalada Baghdad Asxaab ayaa waqtigaasi isagu beeniyay in taangiyada ciidamada Mareykanka ay soo gaareen qalbiga magaalada Baghdad gaar ahaan qasriga jamhuuriyadda iyo goobo kale oo muhiim ah أدخلوا 65 دبابة وما إلى ذلك مثل ما نشرت بعض الشبكات التلفزيون أنه في وسط المدينة waxay dhaheen 65 taangi ayaa soo galay iyo wax la mid ah bartamaha magaalada sida ay baahiyeen telefishinada qaar waxaan leenahay arintaasi waa waxba kama jiraan أنا أقول لكم هذا الكلام غير صحيح waqtigaasi waxaa la rumaysan yahay madaxweynihii dalkaasi Ciraaq Saddam Hussein Abdulmajiid oo isagu gacantiisa ku qoray warqad dardaaran ah oo dadweynaha dalkaasi ugu baaqayay dulqaad iyo kacdoon inay muujiyaan inuu ku sheegay in xilligan dagaal uu bilow yahay sida ay tilmaameen khubaro Ciraaqiyiin ah
wakhtigaasi ciidamadii Mareykanka iyo kuwii kale ee la socday waxay dagaalo xoogan ku qabsadeen magaalada caasimadda ee Baghdad gaar ahaan eeraboorka magaaladaasi iyo goobo kale oo muhiim ah. sagaalkii Abriil ciidamada Mareykanka ayaa waqtigaas iyagu sheegay inay gacanta ku dhigeen inta badan magaalooyinka dalkaasi Ciraaq. waxa warbaahintu ay soo bandhigaysay dadweyne fara badan oo iyagu isugu soo aruuray saaxada Firdaws ee magaalada caasimadda ee Baghdad soo horjeedka hoteelka Sheraton, waxaana dadkaasi iyagu ay ahaayeen kuwa u sacbatumayay ciidamadii Mariniska Mareykanka ahaa, kuwaas oo inta calanka Mareykanka wejiga kaga duubay haladii madaxweyne Saddam Hussein dhulka soo dhigayay, halka dadweynihii reer Ciraaq iyaguna dhankooda ka garaacayeen qof taalada meeshii uu ka gaaray. Ritaankii taalada Saddam Hussein weliba saaxada Firdaws waxay ahayd fariin guud ahaan caalamka ku socotay, taas oo ku aadanayd in Ciraaq ay gacanta u gashay ciidamadii Mareykanku hogaaminayay. waxaa xusid mudan in isla maalintaasi warbaahinta qaar ay soo bandhigtay in madaxweyne Saddam Hussein oo goob fagaara ah oo ku taala deegaanka Cadamiya oo kula damaashaadayay qaar ka mid ah dadweynaha dalkaasi Ciraaq, taasoo dad badan oo xusuus ay ku reebtay. waxaana maalintaasi la sheegaa inay ahayd maalmihii ugu dambeeyay ee xusuusta u galay taariikhda intii uu talada u hayay madaxweyne Saddam Hussein. qabsashadii magaalada Baghdad ciidamada Mareykanka maalinkii xigay waxay la wareegeen magaalada Kirkuk, halka 15kii Abriilna iyagu ay galeen magaalada Tikrit. isla maalmahaasi dalka Ciraaq wuxuu galay jawi aad u xanuun badan. waxaa bilowday dil, boob, dhac iyo weliba biliiliqo, iyadoona ay xusid mudan tahay in dhacdooyinkaasi shaashadaha caalamku ay si toos ah u soo bandhigayeen. waxaana ciidamada Mareykanku ay hayeen kuwa amnigooda isku koobay wasaaradaha arrimaha gudaha iyo weliba batroolka kaliya, halka xaruntii mukhaabaraadka, bangiyada, isbitaalada iyo goobaha kale ee muhiimka u ahaa iyagu noqdeen kuwa dayacan oo markaasi boob baahsani loo geystay.
meelaha xatooyada iyo boobkii baahsanaa loo geystay islamarkaana xanuun ballaaran ku reebtay dadweynaha reer ciraaq iyo kuwo kale oo caalamka ah ayaa waxay ahayd biliiqadii loo geystay xaruntii madxafka qaranka. intaasi kadib dalka ciraaq wuxuu galay dagaallo dhiig badani ku daatay oo dhex maray dhallinyaro isbahaystay oo ka horjeeday ciidamadii huwanta ahaa. dagaaladaasi waxaa ku geeriyooday dadweyne fara badan oo ciraaqiyiin ah, malaayiin kalena waa ay ku barakaceen halka ciidamadii huwantana kuwa badan looga dilay. madaxweynihii dalkaasi ciraaq sadaam xuseen cabdilmajiid ayaa muddo kadib la qabtay, waxaana maxkamad muddo socotay aakhirkii lagu xukumay in la daldalo, iyadoona ay xusid mudan tahay in maalintii koowaad ee ciidda la daldalay. dad badan ayaa maxkamadaasi ay sheegeen inay ahayd mid aan cadaalad ku dhicin, islamarkaana waddadii saxda ahayd loo marin. muddadaasi kadib dalka ciraaq wuxuu lugaha la sii galay maalmo kale oo murugo leh. dalkaasi waxaa loo dhisay dowlado kala duwan, kuwaas oo iyagu aan ku najixin amaba ku guulaysan in amniga guud ee dalkaasi gacanta ku dhigaan. hase yeeshee waxaa xusid mudan in dalkaasi uu sii galay dagaallo weji kala yeeshay oo dhanka madaahibta ku salaysnaa, waxaana dagaaladaasi yihiin kuwo ilaa xilligan ka soconaya dalkaas. daawadayaal inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkaasi gaarka ah waa mid documentary ah oo aanu ku eegeynay qaabkii duulaankii ciidamadii Mareykanka sanadii 2003 ay ku galeen dalkaasi Ciraaq iyo siday u dhacday dawladii dalkaasi ka jirtay muddadaasi ka badan 10 sano dagaalada ka soconaya dalkaasi dhibaatooyinka khasaarihii ay geysteen. barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkaga tabinaya anigoo Cabduqaadir Qayska waxaa kala qayb galay mahad gaarana mudan wariye Cabdifataax Ali Sharwac oo ku sugan magaalada London ee xarunta dalkaasi Ingiriiska. inta barnaamijkan mid lamid ah dib ku kulmi doono toddobaadkan kiisiga waa barda boqortooyada Sacuudiga oo idinkaga tagaya sida ay nabadgelyo idinna waad ku mahadsantihiin sida aad ula socotaan barnaamijyada.